qaybta labaad cabdirasaaq ismaaciil xaashi ciro. cabdirasaaq ismaaciil xaashi oo loo yaqaano cabdirasaaq ciro waxa uu ku dhashay dhulka daaqsinta ku wanaagsan ee galbeedka gobolka mudug sare. isagoo milcisa ayaa lagu daray sidii caadadeenu ahayd malcaamad qur-aan. cabdirasaaq waxa uu ka mid noqday kumayaal dhalinyaro ah oo soo hana qaaday iyadoo uusan wadanku lahayn dowlad dhexe oo da-yarta waxbarta, balse taas beddelkeeda wuxuu ku biiray dugsiyadii waxbarasho ee gaarka loo lahaa. wuxuu waxbarashada ka bilaabay dugsiga hoose dhexe ibnu cabaas gaalkacyo, isagoo dugsiyada sare ee imaamu nawowi iyo cumar samatar oo carabi iyo ingiliish ku kala bixi jiray labada gelin ee maalinta kala aadi jiray. haddaba markii puntland dib looga furay jaamacado, cabdirasaaq ciro waxa uu ka mid noqday 10 arday oo imtixaan adag kadib deeq waxbarasho ka helay jaamacadda bariga afrika ee markaas boosaaso laga furay. nolosha cabdirasaaq ciro wax ku baranayay aad bay u adkayd maadaama tashiilaadka la heli karay koobnaa, magaaladuna ka jirtay xaalad cakirnaana. waxaa intaas dheeraa in ciro aysan jirin cid gaar ah oo gacanta ku haysay, lagana doonayay inuu noloshiisa isagu la soo baxo. shaqooyinka cabdirasaaq ciro qabtay. howlaha cabdirasaaq ciro qabtay waxaan u kala qaadaynaa dhowr qaybood, sida intii uu gaalkacyo joogay, markii uu wareegay nairobi iyo markii uu u guuray wadanka canada oo uu hadda si rasmi ah u degan yahay. aan ku bilowna markii uu gaalkacyo joogay. cabdirasaaq ciro waxa uu shaqaynta bulshada bilaabay markii uu dhiganayay qeybihiisa hore ee waxbarashada. sanadii 1997 waxa uu bilaabay wargeys af carabi kusoo bixi jiray oo la oran jiray sawtu shabaab ama codka dhalinyarada. waxa uu sidoo kale ahaa baraarujiye dhalinyarada ku wacyigeliya sida ay horumar uga samayn lahaayeen nolosha si kastoo caqabada u haystaan. waxqabadyada kale cabdirasaaq ciro lagu xasuustay intii uu gaalkacyo joogay waxaa ka mid ah inuu macallin ka noqday xarunta agoonta gaalkacyo, iskuulka imaamu shaafici, salaama, imaamu nawowi oo hadda loo yaqaano xaaji cali biixi. meelahaas uu macallinka ka ahaa intooda badan kama qaadan mushaar, waayo qaarkood duruubta wax lagu dhigayay ma ahayn mid saamaxaysay in mushaar loo xaadiro. markii uu soo wareegay nairobi, sideedaba noloshu waa iska noocyo badan tahay, qofka bini-aadanka ahna marba meel bay ka ridaa, isagoo ka rajeynaya in meesha cusub ee uu tegay ka fursado badnaan karto halka uu ka haajiray. cabdirasaaq ciro waxa uu usoo wareegay magaalada nairobi ee wadanka kenya. waa wadan cusub, asxaab cusub iyo nolol cusub oo hardankeeda wadata. cabdirasaaq waxaasoo dhan ayuu u babac dhigay, markii dambena alla waa ku guuleeyey. cabdirasaaq intii uu joogay kenya dhowr barnaamij oo la xiriira horumarinta waxbarashada ayuu ka sameeyey, isagoo sidoo kale ku guuleystay sidii uu dhalinta soomaaliya ee dalka kenya wacigooda kor ugu qaadi lahaa. haddaba waxyaabaha reer kenya ciro ku xasuustaan waxaa ka mid a ma-adka horumarinta bulshada iyo tababarada, golaha tartanka suugaanta iyo dhaqanka, guddiga mideynta ururada soomaalida nairobi, madbacaddii somali publisher house. waxa uu wax ka aasaasay 2 iskuul ee soomaalidu goonida u leedahay ee ku yaala xerada qaxootiga ee kakuma, kuwaasoo la kala yidhaahdo kismaayo primary school iyo borton secondary school. wuxuu wax ka aasaasay ururka nabadda iyo wacyigelinta dhalinyarada ee loo soo gaabiyey bay, oo ay maanta xubno ka yihiin 100 dhalinyaro ah oo kenyaan ah. aasaaskii xarunta cilmi baarista akhriska iyo qoraalka ee jaamac cumar ciise oo ka shaqaysa kor u qaadida iyo ilaalinta dhaqanka soo jireenka ee soomaalida ayaa ka mid a waxyaabaha kale cabdirasaaq ciro lagu xasuusto. sidoo kale xarunta waxaa ku yaala maktabad wax lagu akhristo, iyadoo sidoo kale barnaamijyo kor u qaadida aqoonta u samaysa caruurta yaryar ee iskuullada ka dhigata magaalada nairobi. waxay sidoo kale xaruntu qabataa 7 dhaqan oo sanadla ah, kaasoo ay isugu keento 100 soomaalida adduunka ku nool, kuwaasoo kusoo bandhiga cilmigooda iyo qoraaladooda. ciro wuxuu kasoo shaqeeyey warbaahinta kale ah Somali Channel, Samsa TV iyo idaacadda Star FM oo uu ahaa xilli dheer madaxa barnaamijta arrimaha bulshada. markii uu tagay Canada. markii uu cabdirasaaq ciro tagay wadanka Canada, waxa uu sidoo kale la tacaalayay nolosha qof walba oo soo galooti ku taga wadan cusub. waxa uu wajahayay caqabadaha qof walba oo soo galooti ah wajahayay, balse taasi kama horjoogsan inuu himilooyinkiisii kor usii qaado. waxa uu wacyigelin u sameeyaa dhalinyarada waxbarata, kuwaasoo uu ku dhiirigeliyo kor u qaadida cilmiga ay baranayaan, isagoo ku booqda dugsiyada, goobaha waxbarashada iyo meelaha kale ay ku kulmaan. cabdirasaaq ciro oo kaashanaya koox aqoon-yahano soomaaliyeed ah waxay aasaaseen hay-ad ka shaqaysa waxbarashada, horumarinta dhaqaalaha iyo caafimaadka, taas oo lagu magacaabo Horn of Africa Education, Health and Economic Development Society. sidoo kale cabdirasaaq waa qoraa iyo bare, waxaana bugaagta uu qoray ugu caansan bugaagta kale ah liibaanta qoyska oo ka waramaya sidii loo doorto lamaano ku anfaca loona kasbado maskaxdiisa, xigmad rag iyo xeel dumar, halgankii geele iyo hoyga guusha, sirta nolosha, maankaab, 9 ayaan laawe iyo aabahood, guluf cadaawe iyo gurmad sokeeye oo uu kaga waramayo taariikhda Soomaaliya.
cabdisaaq cirro waxaa intaas u dheer inuu yahay aabe iyo oday reero dhan mas-uulka ah.